السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارت شرفت لي أكو حرن إيكي بردشو إن سلامي وصاحبكين إيكي isku soo laabasho wacan oo xiiso leh saaxiibadeeda soo dhawaada maanta waxaan muuqaal ka sameeyay wadada Maka al-Mukarrama waa wadada ugu quruxda badan magaalada Muqdisho wadadan waxa ka socda macnaha isbedel waxa ku imaaday nadaafada iyo horumar badan ayaa ka jira sidaas darteed muuqaalkan waxa waaye inay tuso sida uu egtahay ma sha Allah quruxda iyo sida ay u dhisan tahay waana wadada ugu quruxda badan magaalada Muqdisho ugu nadaafada fiican marka maantay muuqaalkeena wadadana ku saabsan yahay hadda waxaan ka soo dhaafnay taleex ayaan soo dhaafnay waxaan u sii soconaa dhinaca dabka marka muuqaalkana waxaad ku daawan doontaan ilaa dabka ayaad ku daawan doontaan siday u egtaa wadada waa ujeediyay saaxiibayaal waa wada runtii aad looga shaqeeyay sida halka ka aragtaan marka waxaan idin leeyahay horta channelka subscribe-na la saaro subscribe-ta muhiim waaye si aad 3k subscribe u gaarno nadaafadeeda wadada u jeedaan hadda laamiga ayaa kor taaganahay sidaas darteed laamiga marka waxa ka aragtaan inuu yahay heer caalami marka akhyaarta waxa idin leeyahay ismayaashan waa u jeedin ismayaal oo hadda socda marka wali waxaan ku soconaa wadadii meeshan waxa ku yaala guryo badan oo qurux badan hadda waxaan ku sii dhownahay Trebian ayaa u soconaa Trebian dabka ayaad ku arki doontaa muuqaalka wuxuu ku geeyay ilaa dabka marka qaar idinka kamid ah wali xataa waxay dhaheen dabka soo duub marka waxaan u maleynayaa muuqaal hore hadda ka hor ka sameeyay xataa inuu jiro laakiin uusan macnaha si fiican uusan ahayn marka maanta waxaan ka soo sameeyay muuqaalkan Trebian ilaa dabka oo ah meesha ugu quruxda badan magaalada Muqdisho ganacsiyada ugu waaweyn ku yaalaan deegaanka ugu shidan la dhihi karo xilligan hadda la taagan yahay meel aad iyo aad maartay wadadan waa wada aad iyo aad maartay aad loo isticmaalo dadkan aad u isticmaalaan ganacsiyo badan ku yaalaan meel qurux badan marka hadda wali ku soconaa waxaan ku dhownahay Al-Caasima ayaan joognaa maqaayadan Al-Caasima inta taqaana sidoo kalena Trebian ayay ku taalaa meeshan marka maanta waxa xujo ah Al-Caasima luuqaas ka dambeeya luuqaas magaciisa ayaa la iska rabaa magacaan uu leeyahay marka akhyaarta maanta waxa waaye su'aasha maanta waaye meesha marka imaatid wadadaas halka ka baxda sida halkan ka aragtaan mootooyinka marayaan Al-Caasima luuqeeda marta marka maanta xujada maanta asxaabta taala commentiga ku soo qora commentiga maanta waxa lagu talagalay inuu ku soo marka laamiga oo jeedaan muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay dhinaca nadaafada sida marka aragtaan laamiga waxa waaye heer caalami waaye si looga shaqeeyay sidoo kalena oo jeedaan ganacsiyo badan ayaa halkan ku yaala waana meesha ugu quruxda badan magaalada Muqdisho muraayada magaalada waaye ama faras magaalaha sida loo yaqaano halkan waxa ku taala Sanjad ee uga jeedaa meelahan xayisiin oo noqonaysa ayaga xataa maadaama channelka iyo asxaab badan daawadaan oo hadda qaarkood wadanka aan joogin qof walba wuxuu u baad halkan uu ka arki karaa aan fahanteen marka halkaas sida uga jeedin waa meel ma sha Allah hadda waxaan ku sii soconaa dabka muuqaalkan wuxuu ku eegaa dabka dalcad CC oo marka dabka laga dago ayadana muuqaalka waa ka duubay inkastoo wali edit gareynin insha Allah marka soo edit gareeyo meeshaas aan ku soo xijin doonaa meelo badan oo ay dirteen waa arkay khiyaarta waa soo wada insha Allah hadda wali waa soconaa dhismayaal badan oo qurux badan ayaa naga horeeya marka insha Allah dhismahaas waa intus doonaa waa arki doontaan dabaq aad iyo aad u qurux badan marka halkan ayuu ku yaalaa dhismaha saaxiibayaal hadda waxaan soo dhaafnay Liberia inta taqaan Liberia waa meel caan ah markii xoogaar la soo dhaaf ayuu ku yaalaa dhismahan hadda waxaan ku sii dhownahay dabka dhismahan waa dhismo qurux badan saaxiibayaal waa afirgees u samaysan ما شاء الله waxa loo dhisaan ku dhaasi maartay caalami ah ma fahanteen khiyaarteeda kor ayaa kaamirada ula raacaysa sida u jeedaan sida si fiican ugu aragtaan meesha marka saaxiibayaal waa meel maartay aad iyo aad u sareyso oo maartay ganacsiyo waaweyn ayaa ku yaala hadda meelaha loogooyinkan dhan u jeedin Al-Kawsar miyaa maaqaan meelo badan ayaa ku yaala oo ganacsiyo kala duwan marka xisaab ma laha inta ganacsiyo ku taal hadda wadada dabka ayaan ku sii soconaa meesha sida u jeedaan aydan waa meel qurux badan dhismahan xataa waa ma sha Allah marka akhyaarta inta dabka laga gaarayo muuqaalkan ayaa daawan doontaan waxaan kaloo intus doonaa
dhinaca CC waa duubay already markii dalcada laga dago waan soo duubay ayadana soo edit gareynaya insha Allah waqti marka uu helo meeshaan waa idin soo duubay khiyaare meeshaan dood ma iga gelin kartaa saa idin kugu soo duubay waa kana hotelkan hotel caana Maka Al Mukarrama la dhahaa insha Allah guryo waaweyn ganacsiyo oo maartay muraayada ah kulligood si wanaagsan loo dhisay meelo badan oo waxa ku yaala runtii halkan soo jeedaan waa ganacsiyo caalami ah fahanteen marka meesha ugu quruxda badan magaalada Muqdisho waa meeshaan inta ka arkay aniga meeshaan waxa way ganacsi waa isugu imaado wixii ganacsi ahaayo dhan hoteelo goobo waaweyn oo cafeteria u badan tahay waa meel ma sha Allah marka hadii aad Muqdisho ka maqantay adigu guriga joog ayaan kuu suurtagelinaa sida u daawatay saaxiib marka like-ta ka bakhaylnimo lama rabo like-ta bakhaylnimada ka daam fahanteen like saar hadda waxaan joogaa dabka xalwo boqorsoon dabka waa la yaqaan waa meel caana waa kana dhismahan aad ku weyn asana wuxuu caan ku yahay meeshaan dabka inaa joogo meesha jaadka lagu gado waatana isku dabka ayaa la dhahaa meeshaan markii la dhaafo luuqa oo Liberia ayaa tagaysaa halkaas soo jeedo waa kana dhismahan aad ka qurux badan marka khiyaarta hadii aan dabka imaanay aad ugu meesteen daawashadina muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku koobnaa waa saaxiibkiin AK idin dhahayo fiidiyogan like badan hala saaro ma salaama